islaamka markaan kasoo hadalno buuggeygana waan ku sharaxayaa cilmiga sidiisaba islaamka ayaa laga dhaxlay waagiisii hore markii aan maaragtay sunnada iyo qur'aanka culumo fara badan oo ka dambeysay oo waqtigii casrigii dahabigii la dhahayay ayaa wax badan ka qoray cilmi nafsiga waxa la yidhaahdo sida sheekh albalqi oo aan ku qorayo sheekh albalqi waxa uu sheegay in nafta iyo jirka inay is saameynayaan oo haddii nafta ay jirato jirkana uu macnaha xanuunsanaa tusaale ahaan haddii macnaha qofka uu murugo badan yeesho iyo welwel fara badan oo macnaha uu yeesho in maaragtay inuu qofka markaasi uu cayilayo ama uu macaan ku dhici karo macnaha inay is saameynayaan ayuu sheegay waxyaabihii uu markaas qoray kitaabadaas waxaa la yidhaha alabdaan waalarwaax ayaa waxaa laga soo qaatay dad fara badan oo ilaa hadda maanta ay ku dhaqmaayaan waxyaabihii markaas isaga uu ka qoray casri dahabigii waxaa jira sheekh alkindi nin yiraahdo asagana sheekhaas isagana sidoo kale wuxuu ka hadlayaa in maaragtay xanuunada ay ku dhacayaan marka culimadaas aad u faraha